الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد ولا لها مسلمين تمالك سجوكتان با وباق عصوب لحرير مركز التوفيق الإسلامي مركزكي أدستان كيل مقالة دا أوسلو النرويج كدي مركي باهيو أي باتين dadkuna ay soo bateen yararku ay koreen meelihii ay dadku aadeen dib uga soo laabtay in la helo meel kale maadaama meeshanu inagu yaraatay dadkuna ay ku kala baahsan yihiin magaalada iyo dacaladeeda waxaanu helnay meel ku taal Raman oo iyadu gaaraysa 2150 mitir square ah oo aanu bixinay masjid Raman loo bixiyay qiimaha meeshuna waa 34 milyan oo lacagtana oo u dhiganta 3 milyan 400 kun oo dollar wallahi alhamd half waanu iska shubnay oo 17 milyan oo koron ama u dhiganta 1 milyan 700 kun oo dollar waanu bixinay inta inoo harsan oo 17 milyan oo koron oo u dhiganta 1 milyan 700 kun oo dollar hadaba shalay sidii aad noola dhisteen jazakumullahu khayran shilinkii shalay aad bixiseen oo maanta aydan warba u ahayn halka uu ku dambeeyo laakiin xaq ilaahay uu khaznadaas ay ku urursan tahay yurabbihi rabbi kama yurabbi ahadukum fuluwa suu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay intii aad bixisay in ka weyn badan adcaafan mudaacafan ba ku sugi doonta maantana baahidii baahi lamid ah marka waxaan rabnaa dhammaan walaalaha meel kasta ay joogaanba in nagala qayb qaataan sidii loo dhisi lahaa meeshaas waa meel iyadoo diyaarsan laakiin qiimaha lanaga baahan yahay inaan iska bixino sida ugu dhaqsiyaha badan nabiga sallallahu alayhi wasallam waa tan uu leeyahay qofkii guri ilaahay dhisay ilaahay jannada guri u dhisaa wa jazaakumullahu khayran sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam